Dalaga ayaa sanadkani si fiican uga soo go'ay deegaanada hoos yimaada magaalada Boorama, gaar ahaan hadhuudhka, taasi oo ay beeralaydu ku hawlan tahay sidii ay shimbirta uga celin lahaayeen. Maraanu booqasho gaaban ku tagnay waqooyiga magaalada Boorama ayaa waxaanu la kulanay shaqaalaha beeralayda ah ee shimbirta ka celinaya dalagii sanadkani soo go'ay. waxaana inooga warbixiyeen daladka sanadkani soo go'ay iyo kii hore iyagoo isbarbardhig ku sameeyay. roobku wanaagsan yahay roobka aad buu daay baaqa iyo hawrka iyo calaamiyo dhulku sidoo yahay ayaa garataa sanadkiin iyo sanadkii hore marka la garab dhigo sanadkan bay dhulku ka barwaaqo badan yahay waxaana weeyaan hadhuudhadu iyo dalaggu wuxuu go'ayaa arabisha arafada marka aad jaleecdo dhinaca daaqa iyo gabi ahaanba deegaanka ayaa waxa uu muuqdaa mid barwaaqo ah, taasi oo cadayn u ah in sanadkan roob fiican uu ka daay deegaanada hoos yimaada magaalada Boorama. beertan waa beero ka mid ah beerihii aanu booqanay, waxaanu dhererkeegu dhanaa 13 qoodi ama 156 mitir, waana beerihii ugu cadcad ee dalaggu aad uga soo go'ay. si kastaba ha ahaatee waxa ay indhahagu qabanayaan xoolo aad u shirshilis oo loo soo daageeyay deegaanada barwaaqada ah iyo dadka magaalada Boorama oo ku soo indhadoogsanaya quruxda deegaanka ee sanadkani. Qadar Maxamed Xasan, shabakada wararka xidigta magaalada Boorama.